tanina waa qiso kaleeto oo ciise masiixu inoo sheegay qisadan waxaa la yidhaahdaa laxdii dhuntay nin baa wuxuu lahaa 100 laxaad lax ka mid aha dhuntay haddaba ninkaas waxa uu samaynaya waxay tahay inuu 100ka laxaad 99ka laxaad inuu ka tago ee uu raadiyo laxdiisii dhuntay oo uu raadiyo raadkeedii qaado dadka weydiiyo meeshay martay ugu dambayntiina ayadiyo meel taagan uu soo helay ninkaas wuu farxaa laxdiina wuu qabtaa qoortiisu soo saartaa si degdega maaragtay u badbaadiyo ama gurigii u geeyo haddaba ma laga yaabaa anigu waxaan ahaa sida laxdaas oo kaleeto waan dhunsanaa laakiin rabbigu waa isoo raadiyey 100 ummadood millions ummadood dhexdood buu iga soo dhex qabta wuu isoo helay wuu inoo igu farxa suuragal baa adigu inaad tahay sida laxdaas oo kaleeto uu rabbigu ku raadinayo uu rabbigu ku farxi doono markuu ku helo kuna soo qaadi doono sida Bible-ku noo sheegayo 99 aan rabbiga u imaan waxa ka farxad badan hal xabo hal qof rabbiga u imaan qofkaas malaa'igaha ayaa aad ugu farxa in ka badan inta ay ku farxay lahaayeen 99 aan rabbiga u imaan haddii aad tahay qofka rabbigu u badbaadin doona sida laxdaas oo kaleeto ama sida aniga rabbigu ii soo badbaadiyey fadlan hoos noogu qor commenti si aan kula soo xiriirno hadsanid